waa gabadh dhalinyaro oo ku noolayd magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Hibo markii ay yarayd ayaa waxa dayacay waalidiinteed waxaana korsaday qoys aan ahayn qoyskii dhalasho ahaan ay ka soo jeeday Hibo. Markii ay kortay nolol badan ka bacdi, Hibo waa ay tahriibtay. Isla markaana waxa hadda lagu haystaa dalka Liibiya. Muddo sanada ayaa ay hadda ku sugan tahay Hibo magaalada Liibiya. Tacadiyo fara badan iyo dhib badan oo kala kulmay intii ay ku jirtay jeelkaasi saxaraha Liibiya ayaa waxa ay sheegtay Hibo family ama qoyskii markaasi soo korsaday inay u sheegeen inaanay awoodi karin inay ka bixiyaan lacag dhan $600 oo ay sheegeen inaanay waqtigaasi u awoodin. Hibo ayaa video ay soo duubtay kaga codsanaysa ummadda muslimiinta inay u gargaaraan waalidiin iyo dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo ka warhayay xaaladda Hibo ayaa la hadlay telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV iyagoo ku sugnaa magaalada Hargeysa. inanta waxaan baan ka daawanay moobilada qof dad waaweyn baan nahay ilaahay dartii waxa la yiraahdaa male hooyo male Berbera lagu tuuray reer baa korsaday wiil male walaal male reer baa korsaday Berbera lagu tuuray dabeedna ka bacdi way tahriibtay markay tahriibtayna cid way ka daba tag weyday ilaahay dartii dadka muslimiinta u simantahay waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa ilaahay dartiina ku caawisaan maamada inta ay miskiinada ee Berbera lagu tuuray hooyo male aabba male ehel male islaam oo dhan ayay u simantahay waynu ognahay tahriibayaasha waayahooda waxaan leenahay muslimiinta wax ka badan baynu ka bixinaaye 6,000 ilaahay dartii ugu soo bixiya annaga waxaanu tarayna cooga waan tarayna يا مركا waxaan leenahay dadka muslimiinta oo ilaahay dartii u soo caawiya qof kasto jiil islaam ku yeelo ilaahay dartii ugu soo caawiya waaya ka badan baynu ku bixinaa adduunyo marka inta waxa loo sheegay ummadda islaamka meel kasta joogan soo caawiyaan waxaana lagu haystaa $600 inantaasi meesha ay ku dhibaatsatay cid iyo ciisi toona ma laha hooyaaba toona ma laha ummadda islaamka ayaa wuxuu ah ummadda islaamka ayaan ugu rajaynaynaa inay soo caawiyaan anaguna ilaahay dartii baan ugu kacnay inantaas aanu waxaan qaban karnaba ugu qabanaynaa idinkana waxaan idinka rajaynaynaa oo sidaas oo kale waxa qaban kartaan ku caawisaan inanta aan cidna lahayn inanta Soomaaliyeed weeyaan waa inanta reer Berbera marka anaguna dir ilaahay baan ugu kacnay idinkana waxaan idinka rajaynaynaa dir ilaahay ugu kacdaan xaaladda Hibo ayaa mid aad u daran isla markaana ku dhow inay curyaanto ummadda muslimiintana waxay si naxariis leh uga codsanaysaa inay lacagtaasi ka bixiyaan waa xaalad xun waa xaalad aan lagu eegan karin Hibo waa gabadh Soomaaliyeed isla markaana u baahan inay caawiyaan guud ahaanba ummadda islaamka jiirka ku damqanaya ee walaasha aad la jeclaan lahayd ayaad Hibona la jeclaanaysaa markaad aragtid xaaladda ay ku sugan tahay ilaahayna wuxuu yiri markaad isku naxariisataan ayaana idin naxariisanaya waxay idin ku caawin kartaan Hibo nambarada shaashada idinka muuqda iyo sidoo kale akoonka idinka muuqda shaashada Asma Maxamed Abukor telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa.